kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo u dhaxeeyay laba naadi oo ka kala socday degmooyinka Garbaharey xarunta gobolka Gado iyo Buurdhuubo ayaa ciyaar adag ku dhaxmartay garoonka kubadda cagta magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gado. Labada naadi oo kala ahaa Fatxi Gargaar oo ka socotay degmada Garbaharey iyo naadiga Young Boys oo marti loo ahaa ayaa ciyaaray laba kulan oo saaxiibtinimo. Mid ka mid ah labada kulan ayayna guusha ku raacday naadiga Young Boys iyadoona ciyaartaas ay ku soo idlaatay 1-1. mar kale kulankii xigay ayay ku soo idlaatay barbardhaca eber iyo eber. Labada kulan ciyaareed oo ay wada dheeleen labada naadi ayaa garoonka waxaa soo buux dhaafiyay boqolaal taageerayaal labada dhinac ah. Mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada amniga degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado. Axmed Cabdulaahi Cali Beerkey, gudoomiyaha isboortiska degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada, ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay soo idlaadeen labadii kulan ciyaareed. maanta meeshaan garoonka waxaa ka dhacay maaragtay ciyaar baa ka dhacday saaxiibtinimo ka dhacday ciyaartaas oo dhaqaysatay oo matalaya degmada Garbaharey oo la yiraahdo Fatxi Gargaar iyo tiim matalaya degmada Buurdhuubo la yiraahdo FC Young Boys. ciyaarta shala dhacday waxay ku dhamaatay 1-1 ku badiyay tiimkii maaragtay matalaya degmada Buurdhuubo Young Boys. ciyaarta maanta maaragtay waxay ku dhamaatay barbare ku dhamaatay marka alla yahay Buurdhuubo waa cadi madow Garbaharey waa idin imaan doonaa markiina marka hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa hadda midaan shar waan ka badanay maantana waa barbaro berina inaan iyo saad dambe iyo maalin ahaato inaan maaragtay magaaladiina ku imaano waan in kaga badin hadduu Ilaahay yiraahdo. labada degmada Garbaharey iyo Buurdhuubo laba koox kala socotay Fatxi Gargaar iyo Young Boys ee ku wada dheelay degmada Buurdhuubo waneeneel baan ugu badinay kooxda Fatxi Gargaar maadaama ay kooxdeeda ahaa game kalaan ku ceshanay oo maanta dhacay waxaan ku galnay barbaro waana booqan doonaa insha Allah si ay ugu soo dhaweyn doonaa insha Allah. Kabtanka naadiga Young Boys ayaa sidoo kale warbaahinta la hadlay kadib markii ay soo idlaatay kulan ciyaareedkii ugu dambeeyay. gudoomiyaha ugu horeeyo iyo nimanka kormeerka oo macnaha ii sheegay galinta kale waxaa meeshaan ku dhacay game friendly match oo saaxiibtinimo dhaxmaray anaga iyo dhigeenna ama walaalaheen Garbaharey tiim Fatxi Gargaar la yiraahdo Garbaharey masalo iyo tiim Young Boys oo dhaho masalo ii sheegay degmada Buurdhuubo. waxaan ii sheegay aad ugu faraxsanahay guusha quruxda badan oo weyn oo shalay ka gaarnay kulanka koobaad taasoo aan hidmid aan ka badinay kulanka xigo oo maanta ama galabta ama hadda dhamaatay waxay ku soo dhamaatay ama ku soo ilaatay barbaro. waxaan aad ugu faraxsanahay guusha quruxda badan oo ka gaarnay walaalaheen annagoo ii sheegay ku faraxsan wax ii sheegay carqalada ama foolxuma ama ii sheegay wajxuma ay nagala kulmin ayagana oo si qurux badan inay ii sheegay degmadooda waaye macnaha meeshaan uga tageen marka ii sheegay si qurux badan oo u soo dhaweynay si bahal kalena oo soo dhameynay. salaamaad ugu dambeyn Carab Cabdulaahi Akid Abu Salmaan Lijan hore ee ciyaaraha gobolka Gado ayaa dhankiisa ka faallooday ciyaartii u dhaxaysay labada naadi ee ka kala socday degmooyinka Buurdhuubo iyo Garbaharey gaar ahaan naadiyada Young Boys oo ka socotay Buurdhuubo iyo Fatxi Gargaar oo dhankeeda ka socotay magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. magacaygu waa Carab Cabdulaahi Akid waxaan joognaa garoonka kubadda cagta degmada Buurdhuubo waxaa ku dheelayay labadan maalin maalintii Khamiiska oo shala iyo maanta oo Jimcaha laba tiim oo kala tirsan degmada Garbaharey iyo degmada Buurdhuubo. shala geemkii wuxuu ku dhamaaday 1-1 maantana wuxuu ahaa barbardhac meeshaas oo guusha ku raacay degmada Buurdhuubo. aad baan ugu hambalyeynaya dhalinyarada Buurdhuubo guusha ay ka soo hiyeen geemkii dhacay shalay iyo maantaba insha Allah ta'ala Garbahareyna waan ballansanahay waxaan ku ballansanahay garoonkooda Garbaharey waxaan farayaa inay sadkayso wayna ku faraxsan yihiin dhalinyarada Buurdhuubo geemkii ay ciyaartay badiyeen labadii kulanba. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Faysal Qaasim Xabsho ku magac dheer Shaata ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo u ficil badan ayaa ka dhacday degmada garoonka Buurdhuubo. waxaana ciyaaray laba tiim oo tiim Fatxi Gargaar oo ka socda gobolka degmada Garbaharey iyo tiim ka socda Young Boys oo la degmada Buurdhuubo. shalay ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan ayaa ka dhacday waxayna guusha ku raacday 1-1 degmada Buurdhuubo. maantana ciyaar kale oo isballansaday maadaama kooxda gobolka ka imaatay safar dheer ay soo gashay waxay codsadeen maamulka degmada waxay ka codsadeen iyo sportiga waxay ka codsadeen in hal ciyaar kale loogu daro. ciyaarta iyadana maanta waxay ku dhamaatay eber ay ku dhamaatay ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan ayaa ka dhacday garoonka degmada Buurdhuubo. Cabdulaahi Macruuf, raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado.